taasi waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici xubno ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliland iyo waliba mas'uuliyiin kale oo halkaas lagu soo marti qaaday. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay mas'uuliyiintii kala duwaneed ee goobtaasi lagu soo marti qaaday waxaanay ka warrameen shaybaarkan lagu baarayo badqabka baabuurta iyo waliba faa'iidada weyn ee ku jirta. madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka gaadiidka iyo horumarinta wadooyinka wasiirka warfaafinta wasiirka maalgashiga dhammaan shirkadaha ku guuleystay ee halkan ka soo qayb galay iyo madaxda kale joogta halkan dhammaantiin baa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. inaan maanta ka soo qayb qaadano sharaf ay noo tahay in gaadiidka la eego tayadoodii iyo siday u soconayaan waa dhibaatada ugu badan ee shilalka keenta waa dhibaatada gaadiidka. aad baan ugu hambaliyeenayaa wasaaraduna sida ay uga qayb qaadatay. marka koowaad waxaan hambaliyeenayaa shirkadaha maalgashaday adeegyadan baaritaanka badqabka baabuurta iyo waxaa kaloo hambaliyada raacinaya wasaaradda ku hagaysay siyaasadaha iyo xeer nidaamyaasha kala duwan ee ka fikiraysa badqabka iyo ilaalinta dadkeena iyo baabuurteenaba. waan wada hambaliyeenayaa ganacsatada waxaa leeyahay Allah idin barakeeyo businesska iyo maalgashiga samayseen. anigu waxaan isleeyahay caasimadaha kale aad iyo aad bay uga tafgaaban yihiin magaalada Hargeysa. aad bay uga tafgaaban yihiin dad ahaan iyo dhismo ahaan iyo wada ahaan iyo baahi ahaanba aad bay uga tafgaaban yihiin. tafgaabnida malaha dad baan garaynay magaalooyinka kale way ka yar yihiin macna. haddaad damacdo marka waxaan isleeyahay meeyarka runtii Soomaalidu waxay ku maamaahdaa ninku mas'uuliyadda ayaa leh. annagaba 24 hours waxbaan laga sheegayaa qof kasta oo mas'uuliyad hayana waxbaa laga sheegayaa inaad wax qabato unba muhiim. inaad wax qabato ayaa muhiim. arrintii uu soo jeediyey in magaalada runtii waxaa jiri jirtay guddiga bilicda magaalada oo heer qarana waxaa jiri jirtay qaab ka duwan status gaar ah ayaa caasimadaha caalamka loola dhamaa. ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici waxaana ka mid ah hadaladiisii. waxaan ku faraxsanahay intii maanta daafurno mashruucani badqabka gaadiidka oo muddo soo socday sida ay sheegeen in daafurno aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sharaftiina inay tahay. waxaan leeyahay laba shay baa leho horta mashruucani waa badqabkii gaadiidka. badqabka gaadiidka noqotana waa wax nafteena daruuri u ah inaan ilaalino intii aan ilaalin karno. waxaa laga wadaa Soomaaliland ama Soomaali dhaqankeeda tanafteeda naftiisa inay ilaalino. dhakhtarada waxay tibnaa waraq rasulu ma tibnaa laakiin isma jeekarayno adiyada kale jeeg uu qof sanadkii mar hadday tahay caafimaadka guud hadday tahay ilkaha waa isjeekarayno ama shaybaarka samaa waxaa loo marayaa in qofku ogaado xanuunka intuu bilowga yahay. laakiin waxaa dhaqan laga qabtay nafteeda waa inuu hayno goor dhacno baan dhakhtarada tibnaa jawaab waxaa loo ninkan naftiisiiba gaadiidkiisa ugu darayaa way adkaanaysaa. ومحمد حسين إبراهيم زمن يوستي في مقالة هرقيسة.